qalabkan waxaan marba u soo bandhigaynaa inaan dadka ama ummadana soo dooratay degmada Burco u soo bandhigno maalinba wixii aan u soo kordhino ee cashuurta aanu ka qaadayno aanu ugu soo iibino sheewashan imika halkan taala sheewalla ka horeeyay aanu iibinay way jiraan oo iyada ka horeeyay waliba waa sheewal cusub oo aanu ka diranay warshada ka diranay waa sheewal laba dheefoodla oo xagga dambana waxbay ku qodaysaa xagga horena waxbay ku qodaysaa waxna waa rartaa waxna way qodaa waxaan ku taysgareynay carakaawada kaba dheeran ku taysgareynay oo aanu 3 maalmood kaga soo shaqeynay ujeedadaydu waxa weeye kaliya dadka shacabkayga inaanu tusno inaanu u heeganahay oo wax u qabanayno oo waxooda yar ee urura marba aanu wax muhiim ah u siinayno waxaanu soo bandhigaynaa cagaftaas halka arkaysaan iyadoo ay jirtay horumar ballaaran oo aanu ka gaadhnay haddaanu maamulka dawladda hoose naho waliba aanu kaga faano reer Soomaaliland oo dhan macdaadka waayo haddaan macdaad sirin horumarka dawladda hoose ama degmadu inay horumar gaadho suurtagal ma waxa halkan dhabarkayga taagan oo arkaysan cagaf sheewala iyadoo mid hore oo ka horeysan aanu iibinay oo sheewashani ay waliba kaga duwantay inay leedahay qalab dambe loogu talagalay oo ay tii hore kaga duwantay meelaha toore afka hore lagu jeexi waayo in xagga dambena lagu jeexo oo qiimaheeda waliba ay kor dhaafiyeen $50,000 laga siiyay inaanu saaka bulshada u soo bandhigno baahi weyn loo qabay ujeedadaanu ka leenahay waxa weeye in degmada Burco meelaha baahiyaadka loo qaba ama wadooyinka ha noqoto ama meelaha kale maxay ahaydey baahida looga qabay wax ka taraysa ha noqotee runtii baahidii aanu iibsanay inay daboosho maanta waxaanu soo bandhigaynaa macadaadkii dawladda hoose aan ugu talagalnay inaanu kaga qayb qaadano bilicda magaalada annagoo dhawaan bilaabi doona banayntii wadooyinka taasoo inaga caawinayso macadaadkan aan soo bandhigayno waxaanu shacabka leenahay qof waloo wada degan ka sii diyaargarow ka ururso waxa kale oo maanta aan halkan u sheegaynaa nimanka gaadiidka ama geerashada inay ka guraan agabka ay ku foosho xun leh ee wadooyinka yaala